وحكون مهرينيا أبان أبي عبدي أحمد ديرية وولي وأبهري وكانت سوريجي مهركي ونيا هاي عين أما مركب لو سمعنا يطلق كباه ما شاء الله ما شاء الله arooskii lamaanaha qarniga ayaa loogu magac daray fanaaniinta Habboon Nuur iyo fanaanka Marwaan Yare oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Dad badan oo magac iyo maamuusba ku leh bulshada qaybaheeda kala duwan madax ayaa ka soo qayb galay meherkaasi. Dhacdada ugu cajiibsan ee dadku dhagaha iyo indhaha ay ku wada hayeen ayaa ahayd waxa ay Habboon Nuur ka dhigan doonto meherkeeda. balse midii ugu cajiibsanayd ee culimadii halkaasi ka soo qayb gashay iyo bulshaweynta Soomaaliyeedba ay si weyn u soo dhaweeyeen ayaa noqotay kadib markii meherkeeda ay ka dhigtay Habboon Nuur in dadka masaakiinta ah ee tabaalaysan loo qodo ceelbiyood kuwaasi oo ku nool dhulka baadiyaha ee fog. ceelbiyoodkan ayaa waxa uu ku kacaya dhowr kun oo dollar waxayna tilmaantay in arrintan ay uga gol leedahay in dadka masaakiinta loo gurmado maadaama qaybo badan oo gobolada Somaliland ka mid ay ka jiraan abaaro daran. Arooskan ayaa waxa uu ka mid yahay aroosyada ugu hadalhaynta badan sanadkan sii dhamaanaya ee 2025 waxaana loogu magac daray arooskii qarniga. labada fanaan ee aqal galaya waxaana la filayaa in arooskoodu uu ka dhaco magaalada Muqdisho ayna ka soo qayb galaan dadyow kala duwan. fanaaniin baa isaga kala timi qurbaha kuwa kale waxay u yimaadeen si ay uga qayb galaan arooska iyagoo ka kala yimid magaalooyin kala duwan oo Soomaalida ah. Arooskan ayaana noqonaya kii ugu hadalhaynta badnaa ee toddobaadkan gudihiisa ka dhaca dalka. Habboon Nuur ayaa waxaa lagu tiriyaa fanaaniinta codka halaasiga la soo baxay sanadihii ugu dambeeyay halka uu Marwaan Yare yahay xidig ka soo baxay dalka Sweden kaasi oo heesihiisa ay si weyn u gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dhulka ay Soomaalidu degto. مستر محمد محي الدين وحكون مهرينيا أبان أبي عبدي أحمد ديرية وولي وأبهري وكانت سوريجي مهركي ونيا هاي عين أما مركب لو سمعنا يطلق كباه ما شاء الله ما شاء الله وانا صدقت لبحين يوم لبحين يوم dadka ooman ee biyaha u baahan ceel ama barkad loo sameeyo oo lagu qiimeeyo inta meherka wax ka dhigatay barkad loo sameeyo dadka ooman ma sha Allah barkadaas meel alla meeshii u baahan ee biyaha ay ka jirto iyo ceelka ama barkadaas markii looga qodayo wallahi ma sha Allah intaas marka la sheegay waxa weeye fahim raqaat qoliyii dahabka ku yaa jiro وولي راتي وكالة المسؤول في مهكي هي شرية دولار بركداسية معاها وصلين يوم قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر ما شاء الله قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكبير. ذرية طيبة صالحة رزق إلهي كأمور الله كيرو كيل لكم نستيل لكم نجال الله كيرو كيل لكم بروا قومين لكم بدار الله كيرو اسمه قولي له خالد السوري وكانت سوري كيو سامعوا بكم وحد بيقدر يسمع مع الله ما سيدا ووري تجارة لا دوري في شيء وكانت ويديني والعيد ما كان يسمع كل انتهاي واي ما تفضل هي مسؤوليتك يا أيها المتابعة لكن أنا فرنسا كل قرار على كل قرار قلبا يجي حتى انت والذي كقريه اما ميدي شيغا ميرك ميشيسين waxa ku heshiiseen intaasaan ku heshiinay wallahi waa way ma hubta haawanu ba way bes kun bilaawina بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واحد من كبير كبار بدينا مستر محي الدين
كون هرينيا أبون أبي عبدي أحمد ديرية وولي له أبهري وكانت مسورجي مهركي ونيا هاي عين أما مركب لو سمعنا يطلق كباه ما شاء الله ما شاء الله ومهر وانا صدقت لبحين يوم لبحين يوم dadka ooman ee biyaha u baahan ceel ama barkad loo samaynayo oo lagu qiimeynayo inta meerka wax ka dhigatay barkad loo samaynayo dadka ooman ma sha Allah barkadaas meel alla meeshii u baahan ee biyaha ay ka jirto iyo maceelka ama barkadaas maartay looga qodayo wallahi ma sha Allah intaas marka la sheegay waxa weeye fahim raqata qoliyii dahabka ku yaaci jiray وليين راتين وكالة المسؤول في مهكي كريه شريف $10 مركزية معاه كان مصممين يوم قبلت نكاحها وتسبيجها بهذا المهر ما شاء الله قبلت نكاحها وتسبيجها بهذا المهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تكبير ذرية طيبة صالحة غير إلهي كأمور الله كيرو كيل لكم مستيل لكم مجال الله كيرو كيل لكم بروا قومين لكم بدار الله كيرو سوكو يا عيبا أنا أقول له أنا شو قلت الله كيرو نعليه